بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا كان وحنا شوقنا إسبتال كجود قالكعيو مقالة قالكعيو قبل كمذوق أو هل كان دكتور عدي ودن كي قفديو إيو دبنياشة هويين كذا waxaanu halkan u nimidna wax weeyaan inaanu ka hadalno idaacadana ka soo deyno kiisaska foosha xun ee ka dhacay Galdogob dhibaatooyinka iyo xaqdarrada iyo xadgudubka gabdhaha lagu sameeyay gabadhfalkaas khaasatan mid kamidana baraha bulshada la soo dhigay sawiradeedii oo runtii ilaa email xun ay ka gaadho la buunbuuniyay waliba si xun loogu takrifalay asbaabahana waxay tahay in aanu ka hadalno in arrinkan ka dawlad ahaan Puntland aanu ka xunnahay talaabo adagna aan ka qaadayno oo ah mid diinta wixii ay ka qabto oo aan cidina loogu aabayeelaynin lagu qaadayo dambiilayaasha tan dhanka kaleetana reerka iyo dibanayaashana ilaa iyo xilligii dhibaatadii dhacday ilaa iyo haatan inagoo doctor dhagacada la kaashanayna khayr Allah siiyay xagga caafimaadka noloshooda iyo wixii ay mariyeen aanu ka warqabnay isla markaana aan ka warqabi doono oo khaasatan haatan aanu ku guda jirno sidii iyaga loogu diyaarin lahaa dhibanayaasha kaliya ma aha reerka dhamaantood iyo caruurtooda in waqtiga dhow iyo waqtiga fogba haduu alla idmo mustaqbal iftiimaya loo aasaaso si ay uga soo qabtaan dhibaatadii isla markaasna iyagu nafsadoodii ay wax isugu taraan oo markaa reer ahaana ay meel uga maxay soo baxaan haduu Ilaahay yiraahdo dabcan haday noqoto ololaynta iyo qareemida iyo wax qabadkoodana waa midaan ugu heelanayn mid si soconaysana ay tahay haduu alla yiraahdo waxaan rabaa inaan ka jawaabo warqad ku qodobaysnayd kuna taariikhaysnayd bisha 19keedii oo uu soo saaray madaxweynihii horeeto Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegaysay in caafimaad iyo kaalmo loo fidinayo gabdhaha mid kamida siiba Ridwaan waxaan leeyahay madaxweynaha hore aad buu u mahadsan yahay laakiinse dawladda Puntland waxay soo jirtay ilaa 98 daafaheeda gees waa mid awood u leh in ay sharciga qaadsiiso qabadsiiso wax alla wixii ku xadgudba xuquuqda dadka khaasatan gabdhaha saas darteed waxaan u soo jeedinaa ku dhiirigelinayaa annaga gabdho la kufsadaa maxay ahayd aan keenna halkaaneeto on ka qaadnaa laga soo daabulay koonfurta Soomaaliya ku celinaa xamar gabdhaha lagu kufsadaa oo haatan hadda gabdho kaliya maraysay wiilalna waa ku jiraan in kaalmadaas iyo mid ka badanba uu u fidiyo dadka dhibanaha ah ee ku dhiban Muqdisho haduu Ilaahay yiraahdo waayo Puntland waa ka adag tahay hawsheeda dhibanayaashana waxay u taalaa Puntland difaacooda kobcintooda daryeelkooda Puntland bay u taalaa waa midaan ku guda jirna aniga ka wasiir ahaana 100% aan u taaganahay inta kadib waxaan daneynaynaa waxay tahay in dhibanayaasha iyo qoysaskooda xagga cadaaladda in cadaalad loo helo si aysan u noqonin falkan fal soo noqnoqda labo iyaga in mustaqbal loo sameeyo saddex in caafimaad buuxa oo xagga maskaxda ah iyo dhimirka kobcinaya oo soo celinaya oo tiiraanya bixin u noqonaya iyo caafimaadkii guud dhan inay helaan waa midaan anagu u taaganahay ka dawlad ahaan iyo khaasatan ka wasaarad ahaan waxaana dhiirigelin u soo jeedinayaa dhammaan muwaadiniinta reer Puntland waxaan leeyahay waa inaad ka gilgilataan kiisaska gabadhfalka ah ee gabdhaha lagu la kacayo kiisaska kufsiga ah ee aan mararka qaarkood wax dhibanihi kaliya aan ku koobnayn ee ummadii dhan ku kooban ay noqonin mid la yaraysto ama mid dhaqaale lagu bedesho waayo gabadha mustaqbalkeeda markuu baabao dhaqaale waa la helaa waana la waayaa laakiin markuu mustaqbalkeeda baabao qof dhan ayaa isagoo nool aadishay waxaan muwaadiniinta ku boorinayaa haduu Ilaahay yiraahdo inay igu garab istaagaan ka dawlad ahaan iyo dhamaanteen inta ka soo horjeedaba gabadhfalka lagu gabadhfalay gabdhaheena inay nagu garab istaagaan ka soo horjeedsadaan aysan ugu aabayeelin qabiil aysan ugu aabayeelin adeernimo ugu aabayeelin dhaqaale iyo yaa awoodo inuu cadaaladda ka farabaxsado
aan qabanno waayo haddii inaga quluubteenu ay fasahaado inagoo dhan baa fasahaadayna haddii aan ku gabadfalno carruurtanadana masiibo weyn baa nagu dhacaysa puntland waxaa lagu yaqaanaa dad muwaadiniina oo dadkoodii dalkooda jecel xaqana u taagan waxaana rajaynayaa taas inay maanta caddaato hadduu ilaahay yiraahdo culimmada Soomaaliyeed ee kiisaskan ka hadashay aad baan ugu mahadcelinayaa waana hubaa hadda culimmada iyo guddiga ku haya gacanta kiiskan xukunka soo saaraya inay sida xaqa u soo saari doonaan wada shaqayntooda waa uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa cadaaladda iyo xeer ilaalinta oo iyada runtii iyagana u taagnaa kana shaqeynaya 100% sidii xukunkan loo soo saari lahaa dambiilayaasha loo soo qaban lahaa tusaale looga dhigi lahaa in alle intii mar kale damacdo inay u bareerto inay ku gabadfasho gabdhaha yaryarka ah Dr. Dhagacade aad baan ugu mahadnaqayaa runtii ilaa min bilow min dhamaad dhakhtarkiina garab taagnaa weeye xaruntiisa hadday noqoto talaabo walba dhanka caafimaadka oo dhinac walba ah isagaana garab taagnaa aad baan ugu mahadnaqayaa khayr Allah siiyaan leeyahay waxaan rajaynayaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo in dhaqaatiirta kalena iyagana ay ku dayan doonaan insha Allah biidnillah kariim sidoo kale xuquuqul insaanka isagoo wadanka ka maqan ayuu hawshan wax ka waday ka warqabay isna waa u mahadcelinayaa ugu dambeyntii madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas si khaasatan fariin ayuu igu soo furay reerka iyo caruurtooda in 100% ka dawlad ahaan iyo ka madaxweyne ahaan iyo ka shakhsi ahaan uu ugu taagan yahay in mustaqbalkooda iyo horumarkooda iyo difaacooda uu ka shaqeynayo insha Allah biidnilaahi kariim anigoo wasiirkii horumarinta haweenka arrimaha qoyskana xukunka inuu dhaco dambiilayaasha xukunka la soo taajiyo in tusaale ummadii u noqoto gabdhihii horumar gaaraan reerka horumar gaaraan aysan noqonin dad campaign lagu galo aysan noqonin dad dana gaara lagu qabsado baan rajaynayaa inaan ka shaqeeyo hadduu Ilaahay yiraahdo Ilaahayna ha noo fududeeyaan leeyahay hawsha noo taala Ilaahayna ha naga dhigo dad mar walba xaq isku raaca ee aan qabiil isku raacin ee danta guud mar walba u istaagsan insha Allah biidnilaahi kariim waxaa jira in ayaamaha kan markii kiiskii la maqlay in baraha bulshada la soo dhigayay ama si xun ama si fiican ba laga wado ama qareemida laga wadee aad iyo aad runtii mararka qaarkood xataa aan arkay dad si kaftana wixii u qaadanay waxyaalahaas oo kalena dad islaamaan nahay waa waxyaalo laga xishoodo waa waxyaalo laga sariigto waxaan rajaynayaa dadka iska dhigay inay daneynayaan ay baraha bulshada soo dhigayaan gabadhaas yarta sawiradeeda inay ka tanaasulaan way dad islaamaan nahay ilaahay baa idin jeeda ilaahay baan marqaati idin kaga dhignay waxaan rajaynayaa inaad falkaaseeto hadaad ku kacdeen aad ka tirtirtaan dib uga noqotaan aydan mar dambana ugu noqonin ma maadsantiin hado inagoo dhan baa fasahaadayna haddii aan ku gabadfalno carruurtanadana masiibo weyn baa nagu dhacaysa puntland waxaa lagu yaqaanaa dad muwaadiniina oo dadkoodii dalkooda jecel xaqana u taagan waxaana rajaynayaa taas inay maanta caddaato hadduu Ilaahay yiraahdo culimmada Soomaaliyeed ee kiisaskan ka hadashay aad baan ugu mahadcelinayaa waana hubaa hadda culimmada iyo guddiga ku haya gacanta kiiskan xukunka soo saaraya inay sida xaqa u soo saari doonaan wada shaqayntooda waa uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa cadaaladda iyo xeer ilaalinta oo iyada runtii iyagana u taagnaa kana shaqeynaya 100% sidii xukunkan loo soo saari lahaa dambiilayaasha loo soo qaban lahaa tusaale looga dhigi lahaa in alle intii mar kale damacdo inay u bareerto inay ku gabadfasho gabdhaha yaryarka ah Dr. Dhagacade aad baan ugu mahadnaqayaa runtii ilaa min bilow min dhamaad dhakhtarkiina garab taagnaa weeye xaruntiisa hadday noqoto talaabo walba dhanka caafimaadka oo dhinac walba ah isagaana garab taagnaa aad baan ugu mahadnaqayaa khayr Allah siiyaan leeyahay waxaan rajaynayaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo in dhaqaatiirta kalena iyagana ay ku dayan doonaan insha Allah biidnilaahi kariim sidoo kale xuquuqul insaanka isagoo wadanka ka maqnayna khayr Allah siiyay xagga caafimaadka noloshooda iyo wixii ay mariyeen aanu ka warqabnay isla markaana aan ka warqabi doono oo khaasatan haatan aanu ku guda jirno sidii iyaga loogu diyaarin lahaa dhibanayaasha kaliya ma aha reerka dhamaantood iyo caruurtooda in waqtiga dhow iyo waqtiga fogba hadduu alla idmo mustaqbal iftiimaya loo aasaaso si ay uga soo qabtaan dhibaatadii isla markaasna iyagu nafsadoodii ay wax isugu taraan oo markaa reer ahaanna ay meel uga maxay soo baxaan hadduu Ilaahay yiraahdo dabcan hadday noqoto ololaynta iyo qareemida iyo waxqabadkoodana waa midaan ugu heelanahay ugu heelanayn mid sii soconaysan ay tahay hadduu alla yiraahdo
waxaan rabaa inaan ka jawaabo warqad ku qodobaysnayd kuna taariikhaysnayd bisha 19keedii oo uu soo saaray madaxweynihii horeeto Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegaysay in caafimaad iyo kaalmo loo fidinayo gabdhaha mid kamid ah nasiiba Ridwaan waxaan leeyahay madaxweynaha hore aad buu u mahadsan yahay laakiinse dawladda Puntland waxay soo jirtay ilaa 98 daafaheeda geeska gees waa mid awood u leh in ay sharciga qaadsiiso qabadsiiso wax alla wixii ku xadgudba xuquuqda dadka khaasatan gabdhaha saas darteed waxaan u soo jeedinaa ku dhiirigelinayaa annaga gabdho la kufsadaa maxay ahayd aan keenaa halkaaneeto on ka qaadnaa laga soo daabulay koonfurta Soomaaliya ku celinaa xamar gabdhaha lagu kufsadaa oo haatan hadda gabdho kaliya maraysay wiilalna waa ku jiraan in kaalmadaas iyo mid ka badanba uu u fidiyo dadka dhibanaha ah ee ku dhiban Muqdisho haduu Ilaahay yiraahdo waayo Puntland waa ka adag tahay hawsheeda dhibanayaashana waxay u taalaa Puntland difaacooda kobcintooda daryeelkooda Puntland bay u taalaa waa midaan ku guda jirna aniga ka wasiir ahaana 100% aan u taaganahay inta kadib waxaan daneynaynaa waxay tahay in dhibanayaasha iyo qoysaskooda xagga cadaaladda in cadaalad loo helo si aysan u noqonin falkan fal soo noqnoqda labo iyaga in mustaqbal loo sameeyo saddex in caafimaad buuxa oo xagga maskaxda ah iyo dhimirka kobcinaya oo soo celinaya oo tiiraanya bixin u noqonaya iyo caafimaadka guud dhan inay helaan waa midaan anagu u taaganahay ka dawlad ahaan iyo khaasatan ka wasaarad ahaan waxaana dhiirigelin u soo jeedinayaa dhammaan muwaadiniinta reer Puntland waxaan leeyahay waa inaad ka gilgilataan kiisaska gaboodfalka ah ee gabdhaha lagu la kacayo kiisaska kufsiga ah ee aan mararka qaarkood wax dibanihi kaliya aan ku koobnayn ee ummadii dhan ku kooban ay noqonin mid la yaraysto ama mid dhaqaale lagu bedesho waayo gabadha mustaqbalkeeda markuu baabao dhaqaale waa la helaa waana la waayaa laakiin markuu mustaqbalkeeda baabao qof dhan ayaa asagoo nool aad dishay waxaan muwaadiniinta ku boorinayaa haduu Ilaahay yiraahdo inay igu garab istaagaan ka dawlad ahaan iyo dhamaanteen inta ka soo horjeedaba gaboodfalka lagu gaboodfalay gabdhaheena inay nagu garab istaagaan ka soo horjeedsadaan aysan ugu aabayeelin qabiil aysan ugu aabayeelin adeernimo ugu aabayeelin dhaqaale iyo yaa awoodo inuu cadaalad ka farabaxsado ee aan qabanno waayo hadii inaga quluubteenu ay fasahaan bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaanu joognaa isbitaalka guud ee Gaalkacyo magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug oo halkan Dr. Dhagacade uu dhankayga fadhiyo iyo dhibanayaasha hooyooyinkooda waxaanu halkan u nimidna wax weeyaan inaanu ka hadalno idaacadana ka soo dayno kiisaska foosha xun ee ka dhacay Goldogob dhibaatooyinka iyo xaqdarrada iyo xadgudubka gabdhaha lagu sameeyay gaboodfalkaas khaasatan mid kamidana baraha bulshada la soo dhigay sawiradeedii oo runtii ilaa email xun ay ka gaadho la buunbuuniyay waliba si xun loogu tagrifalay asbaabahana waxay tahay in aanu ka hadalno in arrinkan ka dawlad ahaan Puntland aanu ka xunnahay talaabo adagna aan ka qaadayno oo ah mid diinta wixii ay ka qabto oo aan cidina loogu aabayeelaynin lagu qaadayo dambiilayaasha tan dhanka kaleetana reerka iyo dhibanayaashana ilaa iyo xilligii dhibaatadii dhacday ilaa iyo haatan inagoo Dr. Dhagacade la kaashan